السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan, galab wanaagsan, duhur wanaagsan, wax kastoo ay ku tahay wanaagsan. Kusoo dhawaada channelka Surbiyaan channel. Walaalahayga sharafta leh, maanta waxaan idinla qaybsanayaa cleaning and cooking and nadaafad shaqo hooyo. Shaqee waxna kari. Marka waxna waan karinayaa, waan shaqaynayaa. Waxaan umaleynaa hooyo kastaba inay mataqaanaa waxaas qabato. Qudaar ayaan dhaqanayaa. qudaartan aan dhaqanayo kadib waxaan ku karinayaa qado. Digsiga hilibka dabkaan soo saartay. Walow waxaan jeclahay inaan hilibka mataqaanaa wax yar dabka saarto. Markaas kadibna qudaartii aan isku soo wada jarjaray ayay nooc ayaan haystay. Baa waxaan sameeyay hal mar aan ku soo shubay. Waa qado yar oo mataqaanaa easy peasy ah. Waxa way qadadii la karinaa. Kitchadina waa la rabaa in nadiifiyo meelaha qaar kale nadiifiyo. hooyo waxa waaye mar walba shaqo un bay sugaysaa maadaama mataqaanaa adigii hooyana tahay shaqada gurigana ay ka sugayso. Marka waxa waaye hal meel kaliya hadaan raano waan taagnaanaynaa, hal waxaan qabanaynaa waxyaabo badan mataqaanaa naga dhumaay. Marka dhiirigelin hooyo waaye adigoo mataqaanaa gurigii qadadii karinaayo ama cashadii karinaayo ama cunto kale karinaayo haddana mataqaanaa nadaafadii dhinaca ka qaban kartaa. waayo dad tiraahdo maanta qadaan karina maanta digsigaas kaliya aad u taagnaatid hawl badan ayaa mataqaanaa qabya ka noqonaysa ku sugaysa. Marka waxa waaye intii wax aad sameynaysid meelaha kale u baahan tahay inaad sii nadiifisid ayaa mataqaanaa la sii nadiifiyaa. Digsigana dabka ayaa loo gaabiyaa kadib tartiib ayay mataqaanaa suugadaas ama waxaas aad karinaysa ay kuugu bislaanaysaa. adigana waxa waaye meelahaas kale ayaa gacmaha la soo marmariyaa maasha Allah tabaarakallah. ani marka maanta dhiirigelintaana idinla qaybsanayay suugada dabka inta ii saaran tahay suugada kaliya ma koobnaadi waxaan sameeyaa shaqooyin yar oo kale ayaan mataqaanaa aan sii qabtaa. waayo waa u baahanahay suugada iska karaysaa micno male inaad dul taagnaatid uma baahnid. marka walaalahayga waxa waaye waa cleaning and cooking maanta ka shidan tahay waa dhiirigelinayaa dhiirigelin waayo hooyo la is dhiirigelinayaa. hadda meelaha soo nadiifiyay kadib waxaan sameynayaa meeshaan ay tusaayo waxa waaye waa kitchada daaqadeedii daaha yariska igu xidhana waxaan rabaa inaan dust iyo waxyaabahaas mataqaanaa aan ka jafo marka hore kadibna waxaan sameynayaa inaan korso ka qaado. waxaan maaragtay shaqo ma dhamaanayso laakiin si yar oo tartiib aadna aad ku daalin waqtina kaaga dhumin ayaa mataqaanaa loo samaystaa la iskuma badiyo shaqada. marmarka qaarkood waxyaabo yar yar oo tartiibtaada mataqaanaa loo qabtaa waayo ilmihiina waxa waaye barashadooda ku sugaysaa. maasha Allah tabaarakallah ilaahay xoog ha noo barakeeyo. walaalahayga dhiirigelintaana idinla qaybsanayay saa u joojin daaqada dhiladeeda ayaan hoos ka tirtirayaa banaankan insha Allah mar kale waaye laakiin gudaha ayaan hadda mataqaanaa aan ka tirtiraa haddii ilaahay yiraahdo. waa kaasa waa tirtiray markaan dhalada ama muraayada aad ku tirtirtid darashada ama daaqada maro qoyan hadhowna waxaa u baahan tahay mid qalalan. marka mid qalalan soo qaadisa arkaysiin dhalada waxay ku noqonaysaa qurux clear wax looga arkayaa. waa kaasa maro qalalan haddana soo marinayaa maadaama markii hore dastigii iyo wixii inside kaga jiray ama hoos kaga jiray aan si fiican u tirtiray. halkaa waxaa ii yaal gardenkii waaye ilmaha meesha iigu dheedheelan waa alaabii ilmaha ku dheelaayeen daaqada uga jeedin maasha Allah tabaarakallah. daaqada waa furayaa kadibna daahiga ayaan soo deysanayaa laba dhinacaan ka furay cabaar guriga ii leersanaa ama kitchada ii leersanaysaa maasha Allah. hawshii la wali wadaa digsigiina waa ka warqabaa oo dabku ay ugu gaaban yahay walina hawshii meelahana mataqaanaa aan tartiib usii marmaraya. howlweyga waxaan dhexiyaa yaala ayaa mataqaanaa aan ka qaaqaadaa shaqo badan iyo wasakh badan malaha laakiin maadaama ilma haysatid wax la marba meel la dhigayaa kaarbadka waa la jiijiidayaa. marka waxa waaye adigina waxa waaye ka daba shaqeyd waaye moogtahay laakiin haddaan dhihi lahaa qadada kaliya sugayaa ka barqaadan la ama kursi qaadan la meeshaas ka fariisan lahaa intaan oo dhan way isugu lahayd hadda qabsaday kadib xaqinka ayaan saas baan wax yar u marinayaa. wax badan ma u baahna laakiin toosin iyo mataqaanaa iyo wixii ilmaha maadaama ilmo joogaan guriga alxamdulillah ilaahay ilmaha noo barakeeyo waxun bay dhigayaan meelahaas waxa yaala. marka waxa waaye intii waxaan mataqaanaa qadadina aad karinaysid hadul fadhiin waa soo dhameeyay hadda nadaafadii meelahaas aan soo marmaray waxyaabo yar oo beenbeenay aan soo qabtay maasha Allah tabaarakallah. khiyaarta sharafta aad mahadsantihiin daawashada aan daawanaysiin iyo quruxda aan ugu xiray sida quruxda badan aan ugu xirantiin maasha Allah. suugadeeni aan ku soo noqonay iyada iskarisay xogaa hal mar oo kale kaamirada midii ku aadinin ayaan mataqaanaa kusoo noqday waxyaabaa u baahnaa ku darsaday maasha Allah tabaarakallah. hadda way ii bisashahay tartiibteedaasayna u kartay waa kaasaa kadibna waxa waaye baasto ayaan karinayaa insha Allah.
baastadana dhinaca ka saartay. waxaa waaye hawsha ha isku badanine si fudud u qabso gurigii adigana aadan u daalin gurigiina aa u shaqaysatay. maasha allah tabaaraka allah ilaa intaan haysanaysi anagana noo siyaada yaa rabbi. waxaa waaye waa taasaa walaalahayga suugadii aan soo garay waa kaasaa baastada waa taasaa miiskii aan soo saaranay ilmaha ayaan gacmaha kasoo dhaqanayaa. maasha allah tabaaraka allah hadda maxay sugaysa waxaa waaye hala cuno. marka waxaa waaye shaqo yaro fudud qado yaro fudud waqti kaa qaadanaynin aadan ku daalin aadan ku caajisin hal meel haddaad taagantahay waa caajisaysaa laakiin dhex orda guriga. aad iyo aad umahadsantihiin walaalahayga sharafta leh qaaliga ah. please haddii aan ugu cusubto ay tahay markii kuugu horeysaa naga ilaabin subscribe-ka thumbs up commenti share-ka xaggeena waaye. aad iyo aad umahadsantihiin walaalaha ila joogi jirna waxaan leeyahay nala jooga weligiina waxaa naga tegin. assalaamu calaykum.